بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة فدرالك الصومالية، مدحوينها بونتلاند، مدحوينيالك هوري صوماليا، قدوميها أقل كسرة، مدحوينيالك معمل قبليدية، وزير حلبان international community مسؤولين انت جوكتودن انت حفلتان كسو قيب قشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحاميشان لإسوغو يمد إنان كسو قيب قلنو حفلتا على مسارك ولالكين مدحويني لدورتي محمد عبد الله داني يا مدحويني كحجين كيسة إنان سعيد عبد الله داني inaan ka soo qayb galna xafladiisa cali masaarka la isugu yimid. waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba hambaliyo, radka reer Puntland oo dhanna hambaliyo. runtii Puntland waxay soo martay waqtiyo tiro badan oo fiican iyo horumar. aniga waxaan imid Puntland markii igu horeysay 99kii ayadoo uu madaxweyne Cabdullaahi uu madaxweyne ka yahay annagoo wafda. markii aan imaanaynay waxaan ahayn wafdi oo gobolada ka yimid, waxaana la geeyay Garawaan joognay. laba guri oo qurux badan baa ku taalay bas, oo guri uu leeyahay nin takhtar ah oo reebaydhaba hore ahaa iyo guri kaloo hotel. meeshaana la dejiyey, waxaanoo dhismaa ma jirin, waxaanoo horumara ma jirin. waxa gaarsiiyey waxaa weeye madaxdii isbabedelaysay oo reer Puntland ugu dambeeyay madaxweyne Cabdiweli. qurux baa muuqato, horumar baa muuqdo, sharaf baa muuqato. waxaan rabaa si goona inaan ogala ballamo madaxweynaha cusub. aniga waxaan kaga duwanahay madaxweyneyaalka kale. waxaa Puntland jooga oo dadka shacabka reer Puntland aan uga mahad celinayaa shacab tiro badan oo reer koonfur galbeed oo wax allaalay waxay xaquuq lahaayeen oo dhan helay. taasaan dadka shacabka reer Puntland iyo madaxdoodaba uga mahad celinayaa. dadkaas waxay joogaan 20 sano, way heleen runtii xaquuqdii ay lahaayeen oo dhan. waxaa dhiman xaquuqdii siyaasadda. mudane madaxweyne adaa buuxin doontid, waxaa lagaa sugayaa dowladda dhisaysid inay meeshaas ay ku jirto insha Allah. dadka waxay marayaan meesha ugu fiicnayd. mar labaad iyo mar saddexaad waa ku hambalyeynayna. hambaliyo, ilaahay garabkaada ha galo. anigu madaxweynaha si goonihan u kasaaya waa soo shaqeynay xilligii 2014kii baan wasiirre islahayn. waa ninkii ugu habboonaa oo aan isleeyahay maanta marxaladda hadda Puntland ay joogto horumarka ay gaarsiin doonaa. marka aadan ugu faraxsanahay madaxweynaha. waxaan leeyahay hambaliyo, mas'uuliyaddan lagu saaray ilaahay ha kuu fududeeyo. dadka reer Puntland shacabkana waxaan leeyahay horumar iyo barwaaqo iyo sharaf ku noolaada. aad iyo aad u mahadsantiin.